taariikhdu waa 1652 doonyaha ganacsiga ee isaga kala goosha qaaradda Yurub iyo Aasiya waxay ku sii hakataan South Africa oo ah cirifka qaaradda Yurub. Halkani waxaa loo istaagaa si loo helo cunto, cabitaan iyo agabka spare partska ee doonyuhu u baahan yihiin si safarkooda ay u sii wataan. Shirkad laga lahaa waddanka Netherland ama Holland ayaa South Africa u soo dirtay koox ka mid ah shaqaalahoodii si ay halkaasi uga samaystaan xarun ay iyagu leeyihiin. bilowgii ujeeddo ganacsi ayay ahayd sababta halkan u yimaadeen, laakiin markii dambe waxay bilaabeen inay dhul qabsadaan, beero samaystaan, sidaasina ay dalkii South Africa ugu fidaan dadkii lahaana ay dhulka ugula wareegaan. 143 sannadood kadib gumeystihii Britishka ayaa yimi halkani, sidaasina kuwii Dutchka ahaa ama Hollandiiska kagala wareegay. Waqtigan waxaa socda kacaankii Faransiiska, qaaradda Yurubna waxaa ka aloosan xaalad isu awood sheegasho ah. Dalkii Holland waxaa qabsaday dowladdii Faransiiska, dowladdii Hollandiiskuna way tamar daraysay. maadaama South Africa ay muhiim u ahayd isku xidhka wadamada qaaradda Yurub iyo kuwa qaaradda Aasiya, Ingiriisku wuxuu ka baqayay dowladdii Holland ama dowladdii Dutchka in lagala wareego gacan ku haynta South Africa maadaama ay dowladdii Holland markaasi noqotay mid aan tamar saasi lahayn. Waqtigu waa 1944 kanina waa Nelson Mandela waa 25 jir waana kan soo afjari doona gumaysigii 300 oo sano kor u dhaafay. Markani Mandela wuxuu ku biiray xisbi siyaasadeed u ololeeya xuquuqda dadka madowga ah. 1962 xukunkii caddaanka ayaa Mandela jeelka dhigay, waxayna ku eedeeyeen inuu rabo inuu xukunka rido. waxaana lagu xukumay inuu noloshiisa xabsi ku dhamaysto. intii uu maxbuuska ahaa sidii caadiga ahayd waxa lagu qaban jiray ganaaxyadii iyo ciqaabihii ama shaqooyinkii maxaabiistu mari jireen. xukunka caddaanka ahi wuxuu rabaa inay ninkan hamigiisa oo dhan sidan ku burburiyaan oo xabsiga gudihiisa lagaga dhigo nin isdhiibay, laakiin isaga xabsigu waxba kama aanu bedelin aanu ka ahayn inuu kusii adkaado. intii uu jeelka ku jiray wuxuu caan ku noqday adkaysi, magaciisa ayaa dunida oo dhan sidaasi ku gaadhay. malaayiin qof oo wadamo badan kasoo kala jeeda ayaana magaciisa kor u qaaday iyagoo u dooday in xorriyadiisa la siiyo. The long-awaited announcement of Nelson Mandela's release was made in the Cape Town building dedicated to the memory of Hendrik Verwoerd, the architect of apartheid. During the meeting, Mr. Mandela was informed of the government's decision regarding his release. 27 sannadood kadib oo ku beegan 1990 ayaa Mandela jeelka laga soo daayay, sidaasina xorriyadiisii uu ku helay. dunida oo dhan markani waa nin caan ka ah. dunida aad ba lagu sugaya, waxaa la filanayaa sida uu yeeli doono kadib markii uu noqday madaxweynihii dalkani. dadku waxay isleeyihiin wuu aarsan doonaa maadaama 27 sannadood uu si xaq darra ugu xidhnaa gudaha dalkiisa. Blacks expect a new car and a new home the day after the election, and the whites expect to lose everything they have, the status quo. How do you control the game of expectations on both sides? The fear and the concern by the whites and other minority is genuine. We want them to remain in our country because we are going to rely on them in building this country. laakiin Mandela wixii laga filayay waxaan ahayn oo dadkii dunida la yaabeen ayuu sameeyay. wuxuu sameeyay cafis, wuxuuna ku dhawaaqay nabad. inuu dalkiisii si kala qaybiyo wuxuu ka doortay inuu mideeyo. wuxuu la heshiiyey isla xukunkii caddaanka ah ee isaga xabsiga intaasi ku hayay. 4 sano uun kadib markii jeelka laga soo daayay waxaa dhacay doorashadii u horreysay oo si xor ah dadka dalkaasi u codeeyaan. waxaa markii ugu horreysay la arkay dadkii madowga ahaa oo safaf dhaadheer ugu jira inay doorashada ka qayb qaataan iyagoo markii hore aan heli jirin xuquuqdani. Nelson Mandela ayaana ku guuleystay inuu noqdo ninkii ugu horreeyay ee madow ah oo madaxweyne ka noqdo dalkani South Africa. hadda taariikhdu waa 2026
dadka caddaanka ah ee ku nool gudaha South Africa ee uu ku beeray gumaystihii South Africa ku noolaa ee Hollandiiska ahaa ama Britishku tiradoodu waxa weeyaan dadkaasi maanta 4 milyan iyo badh ama 4 milyan iyo 500,000 oo qof oo u dhiganta boqolkiiba 7 dadka dalkani ku nool oo ah 63 milyan oo qof. Hantida guud ee taala gudaha dalkan South Africa waxaa si sinaanta ka fog inta badan gacanta ugu haya dadka caddaanka ah. Tusaale ahaan, dhinaca beeraha boqolkiiba 72 dhul beereedka waxaa iska leh dadka caddaanka ah, halka boqolkiiba 4 ay iska leeyihiin dadka madowga South Africaanka ah. Sidaas la mid ah, suuqa kala iibsiga sheerarka ama suuqa iibinta saamiyada ganacsiga ee ugu weyn qaaradda Afrika kuna yaala gudaha dalkan South Africa 77% waxaa iska leh dadka caddaanka ah. Shirkadaha waaweyn ee warshadahana boosaska ugu sarreeya waxaa ku fadhiya isla dadka caddaanka ah.